بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى ما بعد. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى ما بعد. وعشركii siirada insha Allah taala waxaynu ka gaarno wala waqtigu daahsan yahay ayaynu aqrin doonaa waxaynu dhimanaadan insha Allah usbuuca dambe ay noqon doonto haddii alla yiraahdo oo idaaradda iyo maamulkuna go'aamiyaan inay sii socdaan. waxaa ugu dambeeyay cashirkeena sanadkii shanaad ee hijrada gabagabadiisaynu shalay ku joojinay oo ay halkuu yidhi sanadkaas baa madiina dhulgariir ka dhacay. طبعا dhulgariir hadda xilligan waxaa lagu qiimeeyo ee qiimeynta iyo cabiraatan rekhtarka la yiraahdo ama rektarka la yiraahdo ma jirin, laakiin dhulgariirun xoog badan oo taariikhda galay buu ahaa. kadib waxaynu soo gaarnay asana saadisa min alhijra, sanadkii lixaad markii uu dhashay. وفيها 28 حدثا 28 arrimood baa dhacay ama ugu waaweynaa waxyaabihii dhacay. wuxuu yidhi وفي المحرم bishii muxaram ee sanadka ugu horeysay min hadihi sanati sanadka lixaad ahayd ayay kaanat ahayday dhacday sariyatu Muxamed ibni Maslama radia allahu canhu. saxaabigaas oo ninkii Kacb ibn Ashraf loo diray ee soo diray nabigu wuxuu diray ila al-Qartaa, qoys reer Qartaa la dhihi jiray oo qabiilkii weynaaya Hawaasin kamid ahaa oo qayb kamid ahaa. waxay ahayd muhiimad aad u kooban, 30 bay ahaayeen ciidanku, 30kuna farday saaraayeen. maalintiina geedaha iyo gebiyada godadka hoostooday geli jireen. wadankana si fiican bay u yaqiineen, habeenkiina waa la socon jiray marka la kala seexday cagtu degto. meeshii way tageen, waxoogay bay soo bajinayeen, wax kaloo badan ma jirine in qolyo meelahaasoo hadal laga sheegay laga soo nixiyaa la rabay oo laga soo yaraa nixiyo way kala didideen, kadibna nabad bay ku soo laabteen. muxaram hadday dhammaatay bishii safar waxba ma jirin. wa fii rabiic alawal bishii mawlido min hadihi sanati sanadka lixaad ahaydi kaanad iyadana waxaa ahayd sariyatu cukaashata bni muxsan alasadiy ila alghamri loo diray. waa ciddooda cukaashata bni muxsan waa ninkii nabigu markii uu yidhi 70,000 waxaa jiri doonta ummadayda jannada geli doona biduuni xisaabin walaa ciqaab, xisaab la'aan bay geli doonaan. ninkii durba gacanta taagay rasuulka ilaahi ii bari inaan kuwaa ka mid noqdo, ee nabigu ka mid baata. nin kale istaagay oo yidhi anigana waxaa cukaasha kaaga horreeyey, booskaa waa buxsamay hadda bas khalaas. reer bani asadka uu ka dhashay yaa meesha khamri la yidhaahdo degi jiray. isaguna dad badan ma wadane, way is-urursi bay bilaabeen reer bani asad. meel madiina waxoogay ka fogna way ahayd. is-urursi iyo hadalaa ka soo yeeray iyo ciidan inay urursanayaan. kadib sikadiisa buu ciidan 40 isagoo wata oo fardoolay ah buu sikadiisa ku baxay oon la ogeyn, iyagoon iska filaynin ba meelay deganaayeen buu dul degay. waa la kala cararay marka, nin walba cagihiisuu maalay. naf hadday timaadana de xoole iyo ilmaha meesha jooga lama yidhaahda, taada markay timaado qof walba halkaa hortiisunbuu carari. waa la kala cararay. faqhanimuu xoolay kasoo qaateen warajacuu saalimiin, iyagoo nabadana way soo noqdeen. 100 geelay soo dhaceen. halkii waxaa looga cararay 100 geela, 100 geelana waa soo kaxaysteen. wa fii rabiici alaakhir bishii ku xigtay bisha mawliid oo min hadihi sanati ka mida
kaanad waxaa iyadan ahayd oo mar kale nabigu uu diray sariyata Muxamed ibni Maslama ilaa Dilqasa meel la yidhaahdo uu diray. wuxuu ahaa ciidanku watay 10 nin bay ahaayeen, waxaana loo diray 2 qoys oo meelaha bal inay ka soo yarbajiyaan oo Bani Thaclaba iyo Bani Cawaa la yiraahdo. xogtoodii baa la helay marka, waa laga dignin helay. ciidan ilaa 100 dhan baa loo diyaarsaday, hareeraha laga maray. raggii waxaa ka soo badbaaday Muxamed ibni Maslama oo dhaawac ahaa. inuu dhintay bay moodeen, lugtay ka haraatiyeen, maanu isdhaqaajin, waa lisaga tegay, meyd baa looga tegay. kadib nin muslimiinta oo safar ahaa baa soo maray meeshii ragga meydkoodii, wuu gartay raggii marka wuu istirjaacsaday, inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun buu yidhi. markuu Muxamed ibni Maslama ninkii maqlay dhegta wuxuu ka gartay muslim inuu yahay, wuu isdhaqdhaqaajiyey. marka ninkii baa soo qaaday oo dhaawiciisii Madiina keenay. 10koodii Muxamed ibni Maslama oo dhaawac lagu soo qaaday baa soo badbaaday, 9kii kalena waa dhinteen. وفي ربيع الآخر أيضا إسلا سنة كاس ومن هذه سنة كمدة إسلا بشي لفت هذه وركي مدينة داوعي مركي لقيي ينبي وحصود دري كان ذا سرية أبي عبيدة بن الجراح. أبو عبيدة عيدا لو سو ديبي نمكي رقا لا يبع لسوعدي اللي نديك باكم مقان رقاسة إلى ذي القصة لو سو ديبي. iyagii war waxaa soo gaaraya nimankii aad layseen duulaan xoog badan baa idinku soo baxay. way kala carareen farxad waalay nimankii oo niman gacan kulu leh de farahayna saaraan waxba inaga fakan maayo. wax dhiba lamuunan kulmin, iyagiina way kala carareen. xoolo laga cararay oo laga tagay laga tago la sugu waayeen, xoolihii buu soo kaxaystay isagoo nabadana waa soo laabtay. isla bisha وفي ربيع الآخر أيضا من هذه السنة كمدة bay kaanad ahayd sariyatu Zayd ibn Xaarisa رضي الله عنه وأرضاه إلى بني سليم baa loo diray oo biljamuum. jamuum waa meel aan Madiina ka fogeyn. markaad Maka ka soo Madiina ka soo baxdo durba waad arkaysaa jamuum meeshay ku taalo. iyagana markay dhaxda marayaan oo laga kala dhuuntay bay qof dumar oo Xaliima la yiraahday meesha ku qabteen, meel ku qabteen. iyadoo reerahan reer Bani Sulaymaan ahayn, qola Musayna la yiraahday ka dhalatay. waxaa la yiri away dadkii meeshan deganaa reer Bani Sulaym xagee aadeen. waxay tiri war uma hayo, bal waad u haysaa, waad ogtahay dambay ku tahay ma sheegi. waxay tiri waan idin sheegi laakiin shardi inaan ilaa nabad gelinayo waxba la yeelaynin. waxay waa ballaman ka qaadna waxba lagu yeeli maayo. way ka xaysay iyadana reerkana qabay reer Bani Sulaymka gabar ay qabeen bay ahayd. gam reerkii waa lagu degay, xoolo iyo dad baa la soo kaxaystay, ninkeedii baa ku jiray iyo neefafuu lahaa. intaba dadkan la soo qabtay ku jireen. goortii Madiina la keenay nabigana loo sheegay sallallahu alayhi wasallam, iyadii iyo odaygeedii iyo xoolahoodiiba wuxuu yiri u sii daayay. mar hadday idin tustay odaygeedii iyo xoolaheedii u sii daayay, waxaa waxaaga kaxaysay iska soco, adii odaygaagu waa fasaxantihiin warday weydinkaas. وفي جمادى الأولى بشي جمادى الأولى marka la gaaray ku xigtay ومن هذه السنة كميدة هي مركلة كانت وحاها سرية زيد بن حارثة مر لبعض الدري بش لبعض نوال الدري إلى العيس ديجان كعيس اللي هذا الله دري هي قبائل كي دقيي وتشددوا وحيا هيد يقال له مسعونين ديجان كعيس لو سعودي قبائل لو مسعونين نمر غير قريشة وسفر كيمد وانتي شام تجان سوء أديجي بحكتوضا له لو حق عمرية بقول يتضباطن والنبي يقول دري وذا فردولية دايرين يجديد كده على الكوتا الله دري
nimankii meeshii baa loogu tegay intoo qaybna way carareen wixii xoolo ahaa iyo qayb dadkii waday ahaana waa la soo qabqabtay madiina la keenay dadka la soo qabtay waxaa ka mid ahaa abulcaas ibn rabiic zaynab binti rasuulillaahi ninkeedii baa ka mid ahaa ninkii qabay ee carruurtii u dhashay baa ka mid ahaa dadka ganacsigan tijaaradan wadaye la soo qabtay markii la keenay zaynab uu la xiriiray wuxuu yidhi daadi xaajada way xun tahay inaad magangeliye isiiso aad iga ergeysaan rabaa salaad subax marka la tukaday bay masaajidka intay soo istaagtay waxay tiri war ninka odayga ana nabadgeliyaduna waa horay timid nabigu ma ogeyn lamana wargelin lalama tashan nabigu waa hadla wuxuu yidhi ma ogeyn laakiin qof muslima qofku magangeliyuu leh sidii baa ninkii lagu fasaxay oo isagana lagu cafiyey wa fii jumaada luula aydan isla bishaas oo min hadii sanati ka mid ah yay kaanad ahayd ghaswatu bani lixyaan binaaxiyati cusfaan dhinaceeda cusfaan waa meel maka agteeda halkaasaa la soo aaday falam yalqaw axadan cidna lalama kulmin nimankaasi waa nimankii daati rajiic ragga waxoogaygaa ku laayay ragga dhowrkaa ee ilaa 7 ku laayay 2 ninna qarab quraysh ka gaday oo rag loo dilay qoladii warkii bay maqleen way kala carareen 200 ciidankuna 200 nin bay ahaayeen firxadkay kala firxadeen waxba lama arag halkii baa la degay nabigaana ciidanka hogaaminay sallallahu alayhi wasallam halkii baa la degay 14 maalmood baa la deganaa tuulooyinkii ku hareeraysnaa intay daaqsin la gaari karay maka agagaarkeeda ciidan loo diray saa u soo yar kormaray baa waxoogay la soo kala shaandheeyay kadib uu soo noqday nabigu sallallahu alayhi wasallam bishii xigtay wa fi jumaada al-aakhira min hadii sanata kamida bay kaanad ahayd sariyatu zayd ibn xaaritha mar kale la diray sooray maan idin soo dhigay ninka u badan ee hawlaha gaagaaban loo diro waa zayd ibn xaaritha markii saxaabada nin la yiraahdo ila taraf meel la yiraahdo loo diray qola reer bani thaclaba la yiraahdo deganayd oo kamid ahayd qoladii ragga 10ka intay laayeen maxamed wasalaam dhaawaca la soo qaaday bani awaal iyo bani thaclaba ay ahaayeen way kala carareen ciidanka la dirayna ciidan badan ma ahayne 15 nin baa la diro habeena laakiin iyagii waxa gaaray ciidan xoog badan baa idin ku soo baxay waa la kala firxaday 12 neef oo geela 20 neef oo geel iyo waxoogay ari ah way ka carareen baa la soo kaxaystay markii ciidankii soo gadoomay bay xogta heleen inuu raggu rag tira yar yahay ay ka carareen ay moodayeen ciidan xoog badan waxay dhaheen warayno aynu ka daba tagno is soo abaabuleen way ka soo daba duuleen طبعا زيد uu ku talagalayay isaguna markuu soo dhaqaajiyayba maba hakaynba meel lama ma fariisanin habeen bay hayde soo socday waagaba Madiina ugu bariyay say soo socdeen Madiina ku soo dhawaadeen waxay dhawl ciidan kale iyo bala kale inaga hor iman doontee kuwaas tagay in celiye halkaas ka noqdeen way soo gaari waayeen وفي جمادى الآخرة أيضا ومن هذه السنة كميدة صعد وصل نقضي هول كعبان ويربي هيده كانت سرية زيد بن حارثة هذا عيدا يرلو ديبي وحاله صعد وصل دقي هوش هول كعبان كسو قولي ستيه هل كنات وحال الله دري إلى حسمة قول لي يرهده قصده وحيا هيد النبي عليه الصلاة مركي وسنة كل حاد وفود أدري بدولته بقرطويين كي دولي ذا كشري حلقاس بوراقية فريمة وذا دري ودين تكو جالسين الإسلام كقاتل له رجل دري دي حيتمني خليفة الكلب باكمدها وأنك أنت بدن جبريل الصورة دي يسوي كسو كيسين شري والصحابة أنك النبي قال لا تاجن دحية مودي شري واحد نكاس وحلا دري نمكي قيصرية ذا هاي رومان كان يوروبيانكي لبا يهايان بقرطويه لهايان oo labadaba kristan ahayd midii bari iyo midii galbeed ta galbeed saldhigeedu
wuxuu ahaan jiray magaalada waagii koowaad Byzanta la dhihi jiray markii labaadna Constantinople loo bedelay haddana Istanbul la yiraahdo waqas aldhigooday ahayd kadib diinhaanna waa tan Vaticanka laga xukumay waay tan barina dhinacan Russia ay ahayd oo qaysariyadii nimankii la dhihi jiray qayaasirada waay boqortooyada aha isaga kuwii bari baa loo diray waraaqdii buu geeyay waraaqdii waa la akhriyay hadiyadna waa la soo siiyay waan ka fikiraynaa wadii lagu soo diray oriska noqaalay ninkii dixiyaha markuu aagan yimid qolyahan xisma ay degan yihiin dhowr nin baa hareeraha ka istaagay isageena waa la garaacay wuxuu wateen waa laga qaatay markuu ka soo tagay qolyadii uu ka dhashay qayb kamida ogaaday ciidan bay bixiyeen qabaa'ilkoodii nimankii bay ka daba duuleen way ka soo qaadeen waxay xoolo ka qaateen iyagina way iska daayeen nimanka laakiin dilay waxa hogaaminaya koox bay ahaayeen Hunayd iyo la yiraahdo wiilkiisii yaa kamid ahaa qadixiyo waa tagay arintii uu nabiga gaarsiiyay sallam ciidan degdeg ah la soo raaciyo meeshay galaanba kuwa ka daba tagaalay saa yeelay waa laga daba yimid marka ninka la yiraahdo 500 nin oo ciidan la soo siiyay hadda ciidanka hadda Zayd ibn Haritha wata markan dambe 500 nin oo ciidan uu wata waa ka daba yimid waa soo gaaray horta ninkii odayga ahaa iyo wiilkiisii burcad hogaaminayay labadiiba dhulku dhigay waxa laala waxay xoolo haysteenna waa ka soo kaxaystay kun neef oo geela iyo 5,000 oo ari ahna reerihii waa ka soo kaxeeyay waa ka soo qaateen dad maxaabiisana waa ka soo kaxeeyeen ciidanku watay hadda ciidankii 10 maahane 500 nin oo ciidan u wata iyagiina inta kale waa firxadeen ninba reeruhu iyo qabaa'ilku ku carari kare ku beeri kare ku beeray وفي رجب من هذه السنة كمدة مركلة جماد الآخرة مركلة دماتي بشي رجب زيد لمنسن كانت سرية زيد بن حارثة هدان الله ديري إلى وادي القرى قل ذي الريف الزارة عيانة من حسن الفزاري نبقى مركو دومة الجندل كسر نقضي هشيسك ولقري تشري أيا الله ديري قل هذا الصبح وغي لبيو فتقل لي قال لا سب الله ذي الله ديري مصنف كان يسقو وحيري فلم يلقى كيدا وحدب معرك لكن كتب التاريخ يسير كوحيو بدنيهن إني دقال على قبصدي رك بدن لقى لايي زيد لفتي سنة صار عوامي صاصة كتب التاريخ انتي قرآن يسير ذو بدنيهن لكن مصنف كان يحيري وحبلايا ما ينعرك رجب هذا دماتي وفي شعبان من هذه السنة ديك زيدها بشان شعبان ضاوع باكويا الله ما بحكره كانت سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دوبة الجند الله دري دوبة الجند المركز الله دري عيدا حوق بدن بو هيستي إلى تضرب قرى عيدا نه أيو هيستي هذا بدك ما قبتيده وحال يلي كردك مركز كردك تنا صدح مع الموت دين توية والإسلام كقاطع كله hadday 3 maalmood kadib ka diidaan ku gaacay waxbaal weerara dhinac kaga qaado food ka maleeg baleeri waa soo baxay u soo duldagay 3 maalmood ayuu diinta gaarsiinayay waxa islaamay oo diintii qaatay nin labadaba uu ahaa nin iyaga boqorna uu ahaa kaahinna uu ahaa ee u faalin jiray xagga faalintii iyo wadaadeyntana isaga u ahaa xagga boqornimadii iyo maamulkana isaga u ahaa ninkaas Alasbaq ibn Amr al-Kalbi la dhihi jiray oo boqorka reerka ahaa baa islaamay isaga hadduu islaamay deyntii kale maxay sugayaan islaamkii bay qaateen waxay yiraahdeen dad diintana baraan rabnaa Abdurrahman ibn Awf intuusan meesha ka soo tagin nabigu la soo xiriiray oo wuxuu yiri reerkeen aan la xididaan rabaa uu soo jawaab wuxuu hadaad la xididayso ninka ugaaska ka guurso yiri duqi asbaqa gabadhu dhalo tamaadir la dhihi jiray ayuu Abdurrahman ibn Awf guursaday
reerka si fiican gacanta loogu hayo qoyska madaxtooyada iyo aqalka madaxtooyada gal baa la yidhi halkaas baa caga dhigatee وفي شعبان إسلا شعبان ومن هذه السنة كمدة كانت أهيد سرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه علي بن أبي طالب باهدنا الله دري إسلا بشاس إلى بني سعد بن بكر بالله دري بفدك ميشا اللي رادة شوغا فدك ومليار أو خيبر هوس إيمانيسي هذا يسكب بعضه ودول عسلا يسكب بعضه مقالة داس لكن مقالة ير oo khaybar agteeda ku dhoobay ahayd qoladaas loo soo diray ujeedaduna waxay ahayd muslimiinta iyo khaybar yahuudi joogtay bay xiisadoodu taagneed oo sanadka 7 dhici doona dagaal abaabul dagaal bay ku jireen nimankii reer khaybar nimankan bani sacd ibn bakr la yiraahdo abaabul ciidan bay sameeyeen ciidan lagu taakuleeyo khaybar lagu taakuleeyo iyagana timirta wax laga siiyo iyaguna ciidan inay u diyaariyaan bay ciidan abaabulayeen garab istaaga difaaca kala qayb qaata dagaalka khaybar la gala tii marka la maqlay khaybar suuri dooni mayne qolyaha wax abaabulaya horta waa in la kala didiyaa way kala farxadaan oo yiraahdaan war kama bixi karnaa iyagiiba waa laga soo leexdayo innagii baaba tooshkeena qabtay aynu gabanno inta ay gabanayaan kuwa nasiib baa la isla tagi doonaa la isma hori doonee markaas baa cali loo soo diray inuu kala cayriyo qoladaas wuxuu yiri fashattata shamlahum isu imaatinkoodii iyo ururkoodii oo dhan buu kala firdhiyay shattata waa kala firdhiyay waay fiix buu ka kala siiyay ninba meel buu ka tuuray wa ghanima 500 neef oo ari ah oo geel aan leeyahay ilaa 2,000 oo ari ahna uu ka soo qaaday wasalima nabad buu waa ghanimo helay wasalima nabad buu ku soo noqday qof xabad kama xaganin farxadkay farxadeen de markay nafti ma dhaxoolii waa laga cararay 2,000 oo ari iyo 500 oo geel uu ka soo kaxay de nimankii waa caydoobeene waa inay dagaagaan dagaag ma taqaanaan wala dagaagay ma taqaanaan يا قحواي القحوة الحقد عصب واجي هره dadka markay abaar ku dhacdo ama colaadi ku dhacdo ama yaciidobaan ay meeshan ka tagaan qof walba halkuu hiigsan kare hiigsado hada waa la qaxay baa la dhahaa waagi hore waxa dhigi waa la dagaagay marka way kala qaxeen way kala firxadeen nin walba meeshuu carari karay buu cararay dad badan baa xoolo beelay inay soo kabtaan oo is urursadaan wili waa cabsanayaan haddii xoog isku urursadaan meel in qolo kale oo kaliisa dul degto waa la cabsanayaa khaybar garabkeeda laga baxay marka cidii garab u noqon lahayd baa laga saaray meesha wa fi ramadaan min hadhihi sana bish shacbaan buu nastay ninkii odayga ahaa ee kaanada hay sariyatu zayd ibn haritha radiyallahu anhu ila ummi qirfata binahiyati wadi alqura halkii ay waaga dhaweeyta soo aadeen ee dhaawacu ka soo gaaray baa haddana loo soo diray tuulo ay islaantaas reerka u talin jirtay odaygaada reerka oday u ahaa laakiin iyada inta badan taladu iska haysata la dhihi jiray halkaas uu soo aaday faqatalu wa asaru wa ghanimu wa salimu tii ay sameeyeen dhaawicii ragay laayeen baa rag badan bay soo laayeen maxaabiis badanna waa ka soo qabteen xoolo badanna waa ka soo qaadeen iyagiina nabad bay ku soo laabteen ciidankiisi de nimankii aan shalay laynay duulaan xoog badan oo argoosi ay soo qaadeen baa la yiri ciidan xoog badan oo dhowr boqol ah uu watay marka qoys yar oo reer baadiyo xoolo dhaqata iska ah ciidan hubaysan oo dhowr boqol markuu ku soo baxo horeyna ay rag uga laayeen waa firxad Soomaa nin walba cagahaaga meeshaad ku gaari karta carab bay noqotay wa fi ramadaan aydan wa min hadhihi sanati kamidaha ajdaba an-nas dadkii way abaaroobeen jadban shadiidan abaar adag iyo roob laan badan baa dhacday fastasqa bihim rasuulku sallallahu alayhi wasallam roob doon buu la baxay fanazala al-matar ba soo degay roob doontu waa markii ugu horeysay la jideeyay salaadan roob doonta la tukado banaanka loo baxo sida ciida oo kaleeto go'an la gadiyo labada ragcadood la tukado
dadka loo khudbeeyo la yiraahdo khuduuc iyo tawbadkaan badan hal la muujiyo ila aakhiri طبعا shariicadeena roobdoontu sharcigu jideeyo waa un laba salaada la tukado iyo in la ducaysto ilaahay la baryo ama iyadoo salaad la tukado ama khudba lagu jiro ama masaajida la joogo ama guriga la joogo roobna si labada waay tan ari cadka la qale bariiska cad la kariye iyo kuwan caruurta looxa quraanka inta madaxa loo saaray idinkoo kabala wareega la yiraahdiyo roobdoontii sharciga ay ku asmaaha iyo kan wadaadada inta meesha la fariisiyo idinkoo khalaaweeya la yiraahdo maalmaha kadibna raashinka la isu keenayo waxaas roobdoontii sharciga ay maaha وفي رمضان أيضا بشي رمضان ومن هذه السنة كاملة أجدب الناس جدبا شديدا أبار ذاك باكود عضي فاستسقى بهم رسول صلى الله عليه وسلم فنزل المطر رب دون النبي الرب دونيبا إله مركب الرب بسيه سبحانه وتعالى وفي شوال من هذه السنة رمضان ما كنا ماضيه بشي حكتي شوال لقاري وحين كترنا سنة كي اللي حاده كانت وحاهد سرية عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه إلى زارم اليهودي فقتلوه وسلموا زارم اليهودي اسنه وحوها لأن حولنا بدن مقعنا دير أباب الدغالنا كتشري وانتي عربية وحي قبائل كي شب كاها يسكسوا أباب لي تيبوا النبي زيد بن نكال إلى سريع عبد الله بن رواحة يركوحوا ودري استغينا مضح يسوسوا عسايين وسو خارجيين wixii xoolo meelaha ay ku arkeenna way ka soo qaateen iyagoo nabada iska soo noqdeen ninkaana dhibkiisa waa la soo afjaray ninkii far dheeraatay noqotaba waa la jari jiray وفي شوال أيضا من هذه السنة تسلا بشاس كانت سرية كرز بن جابر الفهري إذا كي هو قامين الصحابي كرز بن جابر الفهري أها لديه جري والله باتن فردولي أها ما رنتاسو نبي قدري إلى العرانيين كوحي برعد عرانيين تاهي بالله دري فأتوا بهم وكان أنت يسوق بقبتين فقتلهم رسول كوادي صلى الله عليه وسلم لمن كان يوحي هايين لمن كوحوا يروان إسلامي مدينة يمادين مدينة هودي إسبدل كذي بعلاش كحنون صدين وحال يستعد وسع علاش يسوع بحسان جيل من مسلمين تنبي قولها وبنان كداقة مدينة بنان كذا يلي الجيل لا تشوجا عنه سيا كذي سيسكو درصدا أنت تكررنا إنسان إسكعب ما نك دم بيتشدين مركي رونادين عافي مادين بيتشدين وحده وريه جيل بمان دعنو نكنا منديلو ninkii geela la joogay way dileen indhahana musbaar bay kala dhaceen geelina way ka haysteen warkii baa nabiga soo gaaray ciidan 20 ah buu diray oo fardoolaya ka daba tago soo qabtay tugta khayminta nimankii waxa kala garaacay nin la yiraahdo Salamat ibn al-Akwa oo fardaha ka dheereeya saxaabi Salama la dhigi jiray magac la yiraahdo baa fardihi nimanka cayrsanayay intuu orod ka dheereeyay oo nimankii halkay marayaan iyo inta yiin soo ogaado orod soo kala jireeyay oo ka hor yimid buu sheego halkaas ay marayaan waana inta waxaasayna wataan buu yiri marka rag waa jiri jiray waagii hore fardaha ka dheereeya anu taban ma garanayo qof faras ka dheereeya ma arag laakiin nin oday oo 80 aan ku soo gaaray baa waxa la yiri ninkan faras ka dheereeya feetin baa lagu tijaabin jiray faraskii feetin orod la ekaya faras dheereeyo waxaan jiray faraska la gadanayo markii la tijaabinayo orod badan yahay ninkan uu la oratami jiray marka ragaasi nimanka waa la soo qabqabtay waa la keenay nabi alayhi salatu wassalaam inma jazaa'u alladhina yuharibuna allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu أو تقطع أيديهم وأرجلهم لقيه قعموا إسلاف وجوي إنها مصابير بكلا دعين صومها يقول نول بمصابير لقلا دعي مال نجا حبور أذق نوال جود هذه بينا لما سينكر ليلي سيو عبادين بيكون نفقهن وحالي وعقابته يقعد كيد النبي مريضات وجزاء سيئة مثلها صومها يجسأ ودلينك حوله يكون عارف معدنا إسلام نمدي ويكون نقدين ويردوبين حولنا وين دعين أحدقي بيتشبيين نكي قال اللي تشوين سحن بيودرين أبال كذا لمريه حلقي حجاج بن يوسف اللي يرادو وانا نبضان هاي سجنا مركا قاركو حادث دها
Soomaalidu shuu xajaajo kale way u baahnaan lahayd ninka soo istaagay yiri weeye dadkii intuu fiiriyay yaa ahlal ciraaqi ciraaq nin kacdoon badanoo dhib badan bay ahaan jireen salaad jumcuu yimid afkuu soo duubtay mimbarku iskaga fadhiistay si khudba looga sugay ninka uu iska fadhiya afka u dooban afka hoosta iska kan muxuu war mid jinni waxba hadli karin bay noo keeneen isaga ilaahay hadlaa marraba uu istaago wuxuu yiri ya ahlal ciraaqi ويا أهل الشقاق والنفاق ولقين فلاقا نمي منافق نماد لهيدين وحول أمير المؤمنين عيدا كي رقي باشا وشري فلاره بكو عبري وهيستيبوا وفيري تأو خرد أو أضك بوراذيو أنا ويسوه لي حق إنه يسوه طوري إلهي بان قد دارتيه مدح يبس لاضي وإن لقرر ربان الكاون madax badan oo bisilo in la gooyo raba baabka bislaato waa la goraay wuxuu waxa ilaahay dhaaraan ku maray albaabka ka baxadaan idin dhaho qofkii ka baxa waan dili dambi kala ma ugu hada hadii ridaa mar jidka mar aan idin dhaho qofkii jidka ka leexda waan dili madaxan gooyn haddaydan toosin waa arki doonta waa inoo sunnahay buri waayaad barateen ninkaas baa lagu eedeeyay وأنسي أذك دتك ودله أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه وسوق علي بوجري مالنا أنا صو حجري نبي محمد عقابتي وقت كيده ودد مري هرت محيا هاي كون هو شيء مرك قلنا عصي هايين بساجو كيستاجي مرك وهاي النهم بولي حجاج باو حقابه وحيد وريا ما أنا ولي جاري تونا بيقول رك مريء ما أنا ولي جاري ولي ما أنا جاري تاسع صو وضع بولي رك بانسال كامرين دونا لكن لا يهاي نقنقتooda ay badatay marka dadkii marar la edbiyo marka nimanka curaniyiintu waa kuwaas وفي هذه السنة إصل السنة كان لحاد وقبل صلح الحديبية هشيسك الحديبية انتو سندعين كانت وحاها سرية الخبط أما سرية سيف البحر سيف البحر بدا حيرته هذا وهي خبط كوحال إلى هذا geedaha midhaha ay bixiyaan ee daata la yiraahdo Soomaalidu abqa iyo waxay yiraahdaan maaqan waxayna ahayd ala raajix sida raajixa waxa madax ka ahaayo wata ciidankaas Abu Ubayda ibn al-Jarrah radiyallahu anhu warda ila 300 bayna ciidanku dagaalyahan ciidanka waxa kamid ahaayo ku jiray Umar ibn Khattab baa ciidankan kamid aha madaxa ciidankuna Abu Ubayda aha waxa loo diray qoli reer Juhayna ah oo xeebta badda degana marka sariyadii way gaajoodeen raashinkiina uu ka dhamaaday markay naftu qabatay geedaha midhihii ka daatay oo khabat la yiraahday cuneen oo naf ka raadiyeen marka ciidankii sayful bahri xeebta kuwii loo dirayna waa la dhahaa kuwii abqada cunayna waa la yiraahdaa isagoo hadda khabat ba ku magacaabay xagga xeebta u dhaadhaceen waxa ilaahay ummada uga soo saaray bahalay ku sheegaan kutubtu in la dhihi jiray cambar waqtigaas kiiba iska dul degeen ilaa badda waxeedu alxillu maytatu waaye banaanka uga soo baxay oo baqtiyay bay cuneen bilku dhawaad bay deganayeen ay cunayeen ciidanka 300 aha waa lagu wada cayilay meeshii waxay yiraahdeen markii dambe baanu soo qaadnay bahalka weynankiisa intuu la ekaa lafihiisi feeraha godna baanu saa u istaajinay lafti awrkii oo wiilkii saaran yahay baa lafti hoos maray oo taabanin xayawaanka inta leeka weynankiisa feerihiisi saa loo istaajiyay awrtii iyo raggii saaraaban taabanaynin hoos maray waxayna soo sahaydeen iyagoo nabadana way soo noqdeen qoladaas la yiraahdaa sariyatul khabat ama sariyatu sayf al-bahri wa Abu Ubayda hogaaminayay radiyallahu anhu warḍah وفي هذه السنة بي كانت هي سرية بني عبس إذن كريب بني عبس لقى حلي على الغالب سيدا بدن إذن كان ريب بني عبس الله مدرينه إذن كان الله دري هوشة لما انتود بأسكر رأسها هاي ريب بني عبس قول لها كدشان وحين نهيد نبي وحاسوه قال صلى الله عليه وسلم سفر قريش لهذا هايو
ka soo adeegtay shaam oo badeecad ka buuxda iyo dhar iyo wax walba ka buuxa ayaa halkaa maraysay reer bani cabsi buu u diray iyagiiba aaday iyagiibaa soo bililaqaystay soo qaaday wixii ay ka soo heleenna keenay nimankii Quraysh ahaa meel ay ka soo adeegtaan iyo meel ay wax u dirsadaan waa waxa ku qasbi doona inay heshiiska soo socda galaan ونميو أن نبض قال لي هذان نبض ده وحي كده بينه دي وابلغو كلا تجي دونا وفي ذي القعدة بشي ذي القعدة كوية طبنادة من هذه السنة كمدة يكانها صلح الحديبية هشيسك الحديبية كدعي وكان فتحا فرس الله والمسلمين تأفروا مبينا عد بهيد ذلك الحديبية وحوها نبي عليه الصلاة والسلام يا الصحابة دي سو كون يشم بقله وعيدنا يسقوا وته أيوم مكسو عادي وصع عمرستي عمره سعادي حديبية مركي مريان حديبية هدي الحج كأله ينجيود آدانا ما تكتين جدا مركات كبحدان مكان كسعتان هل كحرم كلاجا قالوا الكنترول كدت كلاجو بارا ويالله الشميسي اللي يراهدو بيلاس من توي أكتادته مال العيال البيئة كويلي markii inuu soo socdo nabigu la maqalay jidka Madiina ma aha marka dadku waa laga soo yar leexan oo jidca jidaag baa laga galay Xudaybiya marka la yiraahdo bay jidkii Makka u fariisteen iyo Madiina u dhaxeeyay ciidan dhigan oo ka soo wareegayo Xudaybiya markuu maqarayo ay baqleen halkaas hadana ciidan soo dhigan nabiguna waa degay sallallahu alayhi wasallam wada hadal baa bilowday nabigu wuxuu yiri aan wada hadal la yiraahdeen nabigu wuxuu damay Umar inuu diro Umar wuxuu rasuulka Ilaahay أنا يجدا أنا نما كمان سكوا هذا ضغط نهاي إسلامنا كيني كرنو ننكر غير بدن لو خد شيء نتشوغان استغنى أعدينا نقدت سنين إجانا الدبيعات قبو وضدك وحصول صولين كرا وعثمان دير بيري نبي عثمان مديري مكور دعاي وعمريستي سوق وحاسوق شيء عثمان اللي دلي قضب كسوس على مكان دعايو نبيو saxaabadii oo dhan buu wuxuu yiri ballan baynu galeynaa haday arinta run noqoto halkeen ugu horeysaynu kaga bilaabi nin intuu inaga nool yahay dagaalka waynu wadi sheekadu laakiin been baahay kadib halka Quraysh way timid wada hadal baa bilowday wada hadalkaasi si aad la yaab u leh buu dhacay Quraysh way tashataa nin baa wuxuu yiraahdaa aniga u tagayay daaya nabigu dadka waa yaqiinay rag yaqiinayna waa la socdeen Quraysh oo qabaa'il badanna way isugu jireen nin baa la soo kaxeeyay nin baa soo baxay odayaashii kamida waxa rasuulka Ilaahay waa soo socda wuxuu yaa soo socda waxa odaygii hebel ahaa waa soo socda wuxuu odaygii hebel ahaa hadduu soo socdo dadku idinku dharkiinina waa soo ma qabtaan muhrimiin way nabiga saxaabadu soo xirteen dil Xulayfa Madiina agteeda ka soo xirteen awrtii geeli calaamadaysnaa ee Kacbada in lagu qalay rabayna wada istaajiya idinkuna labay kada ku dhawaaqa buu sahebel maaha sayera markay ku dhawaaqeen ee uu soo istaagay hadal kaleba ma gelina wuu isma jiray war dadkan beedka Ilaahay soo maxaad ka rabtaa buu dadka sii daayay ninka isagu sidaas oo la noqday waxoogay markay joogeen nin Kurz ibn Hafs la yiraahdo baa la soo diray وحالي رسولك إلهي مكرز ابن حفص وصو صعده وحولي خائن إنك صو صعداي وخائن شيء دانه هذا الكلام قاعد كي كادن قيل الله ما كعنن تلبينا الله ما قاعدين الساقي واجي ميدو ولا اسمري واي وحوي هذا كمركو السعودي حولي محمد وحن كل الصعده الشعب هذا مالها لقى سوروري waxay ilmaadeerta iyo jifo kugu dagaalamaysa jirin dagaal haduu dhaco way ka kala cararayaan Abu Bakar baa markaa meesha taagan Abu Bakar baa xanaaqay marka wuxuu wariyaa tuugiyo ma anaga nabiga ka cararayna khaainkan laga tuugsanay uu fiiriyo waa yiri ninka hadalka leh Abu Bakar baa leeyahay wuxuu yiri abaal hore adigu lahayd baa jiray haduu sanabaalka ahayn waan ku jawaabi lahaa adoo ninkiina gadoon markii dambe Mughira ibn Shu'ba adeerkii oo odaygii reer Thaqif baa yimid
nabiga korkiisa waxaa taagan oo waardi ah Mughira ibn Shu'ba taagan duqan adeerkiihi ma arko Mughira ibn Shu'ba wuxuu sameeyay baa jiray isagoo safar la socda bay la qumaraateen oo islaamo nimankii islaamkii kala hadlay way diideen iyagoo seexday buu intuu isaga wada dulboodo madaxa guray buu xoolihiina ka kaxaysto Madiina iska xariiriyay nabigu wuxuu islaamku aan ka aqbalaynaa xoolahan laakiin shaqo kuma lihin adu meeshaad geenaday ku jirtaa xoolihii iyo maktii raggii duqan adeerkii bixiyo laga qaaday duqo markuu oogay xaq inuu jiray laakiin raggan inuu la socdo meelaha taagan yahay mooga wuxuu isku dayay nabiga garkiisa inuu taabto seefta dabadeedii buu gacanta kaga dhufto garka nabiga gacanta qurun kale ka dib ku yiri iska xoqday duqiyo cabaar ma ku jiro hadana la qacab wadana ka sii war waa ayuu yiri nigu dhufalay waa Mughira ibn Shu'ba leeyay Allah war ma khaayinkii aan magtiisa bixinayay ka soo cali shakada ka bax markii dambe waxay soo direen nin la yiraahdo Suhayl ibn Amr nabiga waxa la yiri Suhayl ibn Amr baa soo socda wuxuu yiri ma hubtaan ha Suhayl ibn Amr baa ha heshiisiyo nabad bay Quraysh rabtaa wili haday Suhayl soo direen niman wax lagu heshiiyo oo wax la isku ogaado oo eray uu meel ku go'an raba haday ka dhabtay in heshiisi wada hadal galaan intii hore oo dhan lugooyay ahaayeen Suhayl waana nin wax ka go'o waana nin hadalkiisu meel maro waana nin heshiis la wada gaari karo yiri haday Quraysh ka daacad tahay buu wada hadal iyo heshiis la gaaro heshiiskii waxa lagu gaaray muslimiinta qaarkood aad uga biyadiideen heshiiska waxa qodobadiisa kamid ah hadda inay noqdaan laakiin sanadka dambe ay soo umraystaan kow inay 3 maalmood kaliya ma ka joogaan markay soo umraystaan ka badan ayna joogin 3 inayna hub iyo waxba la gelin 4 muddada inta u dhaxaysa in heshiis iyo nabad la ahaado la isdirin oo la isdhaxmaro muddo 10 sanadooda oo la isnabad geliyo waxa kamid ah in Allaalay ninkii muslima ama muslim ahaayo Quraysh ka cararo baxsada oo xagga tagay in la soo celiyo xagga iska soo dhiibay muslima in la soo celiyo Quraysh iyo dadkiisii haday iyagu rabaan loo soo celiyo dawladaha dadka isu dhiibay ma aragteen heshiisyada la galay iyo labada dawladood heshiis baa ka dhaxeeya in dadka soo cararay la isu soo celiyay hadda deema bilaabanin qaab caalami baa laga dhigay wax wixii soo jiray weeye ummadaha macaamilaya ummad xaqan ka cararto xaqan carar gasho ay gari jirtay dhinaca kale cida laala cidii muslimiinta ka soo cararta inaan la celinaynin lama celinay kii muslimiinta ka soo carara kii muslimiinta xaqqa u cararana waa la celin sidaas lagu saxiixay halka Umar iyo rag uu ku jiray xaqi waay nabigu u yimid rasuulka Ilaahayow Kaabada waa tagaysan soo namaada dheheen ha laakiin masanadkana tagi baan ugu koori maya Ilaahay soo muslimin ha soo dadka naga dhintay janno gali maayaan ha iyagu soo gaala ma ha wixii saa kaga dhintay soo naar gali maayaan ha send heshiiskan dulligaas aan u aqbalaynaa heshiiskan waa daadnada lagu soo celinin dadkiina loo celiyo kooda mushkiil la celiyo heshiiska dulligaas aan u aqbalaynaa wuxuu Umarow anigu rasuulka Ilaahay baan rabbina khilaafin maayo sidana dani ku jirtaa sidan yeel uu ka soo tagay Abu Bakar buu yimid wuxuu Abu Bakar صلينا مدين سنة كان واتجيسان اسمه أبو بكر النبي حيله ها لكن ما حدا تجي بالويري حتى كوا تجي بالويري لا تدخلون المسجد الحرام بالويري سنة كان تجي بالويري كاسر مايا سيدي وكالة تويري بالورنيه ورسول كلاهي استجا ينجوه سيدي اللي يلا قاضو هذا هو الشيء كوالا قالي وحال يجري هلا حلال نقضه تماهنا هلا يسكحيره saxaabadii niyad jab badan iyo moral jab badan bay arrintii ku noqotay nabigu amar buu soo saaray wuxuu yiri timaha la xirto wax isla qaajiya la waay watimii xira mar labaad buu ku celiyay wax isla qaajiya la waay oo timii xira uu soo baxay khaymadii uu deganaa buu iska galay waxa joogtay Ummu Salama radiyallahu anha wardaha safarta nabiga la socotay Ummu Salama ay dib ay haystee xaaladana taagan bal tari Soomaalidu haweenkooda qaar way la tashadaan laakiin haddana inay taladeedii qaateen way isdiidsiiyaan
ninba wuxuu ugu yiri xaaskaygu qof aad u caqli badan weeyo markaan rabo inaan la tashadana agteedaan ku calaabu yiri markaasay dhahdaa wili ma yeeshi taladii markaan rabay ka helo anaga musbaan dhahay laakiin nabigu ma yeelin sallallahu alayhi wasallam nabigu sidaas ma yeelin wuxuu yiri bal ila tali musallam waxa rasuulka ilaahay dadku xoogay way ku cuslaatay inta shib dhahdo oo u yeerata qofkii timaha ku xeeri lahaa adu bilow adiga iska bilow marka timaha xeerato iyaga wada xeeran doona sidii buu yeelay ragii oo dhan waa lagu dareeray oo timaha la xirtay talada maalinka lagu badbaaday Soomaa laakiin oday Soomaaliyeed wuxuu leeyahay ka soco maalinka Salama radiyallahu anha wardaha taladeedaas Ilaahay muslimiinta ku badbaadiyay dagaalkiisa Xudaybiya lagu heshiiyay 10 sano bay dagaalkii Quraysh muslimiintu in la kala nasto laakiin waa sanadkii 6 2 sano jiri doona ama 2 sano wax dhiman ayuu jiri doona Quraysh baa jabin doonta burburintayda dagaalkii dhacay marka la furan doona marka lafteeda la qabsan doona laakiin hadda heshiiska 10 sano baa heshiiska lagu galay وفي الحديبية انت اللي تشوغي لفتيدا ايد كانت بهيد بيعة الرضوان بيعدي إلهي دكو كغرى للنقضي تحت الشجرة جيد هوستيدا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا مركي عثمان والد دليل يري والنبي قال الله ينتو استاغي بوليري أنه قعنتي يسقلينه waxaanu noolaanayno ama aanu sugayno ama damboona dhaxmaraya ama wayna dhamaynayaan ama magaalada ka qabsanayna kadib Uthman oo socda yimido sheekadii been noqotay bay'ada waxa lagu galayaa marka calal mawti waay markuu dagaalku yimaado markii banaanka la joogo qof walba waa faalan yaqaan dagaalka qof walbana waxa weeye indhaha waa gududan yaqaanaan xididada doonta ku yaalay hadalkuna suu xamaasaysan yahay way kici yaqaanaan laakiin ma la soo gaaray baasha dhicitaankeedii ma la soo gaaray yaa saatir waay isli anu waxaan ku aqaan 3 nin laga yaabo 3 nin haddaan magacaabo in badan idin kamid inay wada gartaan ninkaan arkay ee dagaal iyo jihaad dhiirigelin ka sheekeeyay ugu badnaayay dadka xamaasad galiyuu ahaa qarni waqti hore sagaashabeeyadii weligiina xabad ma rido xaggeeda uma dhaqaaqo nin kalena wadaadda dagaalamaya intuu yimid wuxuu yidhi niman yahow jihaad baan rabaa jihaadka fadligiisana waan oga baasho i fiirinaysa xabadna ma aadi karo saana xabadna ku aadin mujaahidna ku noqday ii sheega waxay way fiican tahay alaabtana ilaali awrtana foofiyo soo xaree geela noo raac awrtan la raranayo baadiga raacitaankeeda ku ogna ninna qorigii uu hayay markii xogay soo dhawaaday dagaalkii gacan buu ka yar xanuunsanaaye wuxuu wariyaada gacan baan la hiisoo moogidin buu qoriga ku qaban kare laga baasho markay timaado waxa markay dhab dagaalku u yimaado waa nabiga nuu dhihi jiray la tatamannu liqaa al-adu in adu isu timaadaan aad ha u doondoonina ina carrataaba laga yaabo mugdi dadkaysan doonto mooy allahumma mar arko ilaahu mar yaa igeeya aad ha u daydayana fa idha laqaytumuhum fathbutu haday ku qabsatana adkayso in sarir ku carriyo Soomaaliyana waa aan tagay askart baa qasab la isaga dhigi jiray 88 baan halkan ka tagay 1988 xawar baan tagay xawar baan ka gudbay gobolka Hiiraan qaxootiyadii habaan tagay saadan habeenkii u tagay baa la yiri salaada subax waa la israafaya askar baa la iska dhigaya dagaaladii Hargeysa waqooyi baa socday askar baa qasab la isaga dhigaya diina habeenimo cararay noqoto aan ka baxno oo duurka habeenkii barino waxay salaad subax ciidan dhan baa dul degaya dadka qasab baatimaha laga xiray askar laga dhigaya waxay igu yaabadnayd rag intay diracyada xidheen musqulaha galay
waxa taariikh uu yeeshay walku dagaal markuu yimaado cala al-mawt baa lagu ballamayay dadkii baycada waa galeen hal nin baa diidayo awr caso uu lahaa ku dhuuntay al-Judd ibn Qays la dhihi jiray ninkuna munaafiq buu ahaa halka nin baa baycadii ka haray وفي مرجعهم صلابت كي جدك سوهيين من الحديبية عند الضجنانة تولد الضجنانة يربكي مريين نزلت سورة الفتح باكوسو دكتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهناه المسلمون مسلمين تأو التهرية إنا لك فتحنا لك فتحا مبينا هشيسكي أيدتك الديدنايين با فتح له لكم مقعابي مسلمين تحريات بيوها لان دين تينا الشيغان مكاعي تغان قفل بلد دودان قري والبكو آخريان طريق والبلد استاغان يقول عبسانين nabigu ummadii kale waqti u helay dadkii ugu badnaa labadaas sano ee xigtay islaameen qoys kasto quraysh ahana qayba islaamay qof walba islaamkiisu banaanka la soo baxo xorlaya waxa ka fiican baa yaa helaba وفي هذه السنة سنة كاس بنزل سودغي فرض الحج حج واجب لسغدغي وفي هذه السنة سنة كاس بحرمت المسلمات قبلها مسلم كان لغا حارانتنيميي على المشركين رغا غالدا ولا تنكحوا المشركين ليه وفي هذه السنة كان وارسل رسول كدر صلى الله عليه وسلم كتبا قرآن يا وراقه إلى ملوك العالم بقرد يدونك كتشري يدعوهم فيها ويريو إلى الإسلام بقر كست وراق بودري هدو مصر تشوغي هدو قدس تشوغي هدو عراق تشوغي هدو قيصر كيها نول بنبا الله دري أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين قاركود لقوله يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بينكم الله دريه وفي هذه السنة سنة كاس بكسفت الشمس قرح المذوباتي والنبي تكذي صلاة قرح مذوباتك وفي هذه السنة سنة كان بومات دنتي سعد بن خولة رضي الله عنه في الأسر محبوس وكل انت بمكة مهاجر بوها والله قبتي قال بقال قبتي مكة لو حري مكو كجيريودي مهاجرين تنا ما ينتشعلان شرين مكان يكون جيريودانو وابا لغا حارانتنيمين مهاجره انه مكدب u dago waa loo diiday وفي هذه السنه qodobka ugu dambeeyay sanadkan bay qadima yimaadeen soo galay nabigu yimaadeen wafdu judaam ala rasuul sallallahu alayhi wasallam qoladii reer judaam oo reer yaman ahayd baa nabiga u yimid rifaacat ibn zayd al-judami baa ergeeyo ahaa nabigu waraaq buu qoray heshii dadkii uu gaarsiiyo reer judaamna ninkii markuu noqday way wada islaameen halkaas ayaynu maanta ku deenaynaayo waxaan ma adaankii salaada jooga waqtiga dambe la isu soo noqon idaaradii maamulka sheegi doono hawsha iyaga iska leh baan u maleeyo bahsantii jazakallahu salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh